madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay dagaalka ciidamada kumaandooska ay kula jiraan ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in fariisimo Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanada koonfurta Soomaaliya gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose ay kala wareegeen ciidamada dowladda ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in ururka Al-Shabaab ay dagaalada kaga adkaanayaan laakiin ay shacabka Soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay ay ku dilayaan qaraxyada ay geysanayaan ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa bogaadiyay ciidamada dowladda Soomaaliya ee howlgallada ka wada gobolka Shabeellada Hoose. baryahan dambe saad maqlaysaan ciidamadeenu waa howlgaleen dhowr bare yay ka qabteen cadowga maxaan ku raahdaa argixisada ah khawaarijta ah oo ay ka soo gudubsadaan waxyaabaha qarxa waa inaan u hambalyeeno ciidamadeena qalabka sida haddii shacabku uu gacan siiyo ciidamada qalabka sida inaan si yar aan uga guulaysan karno intan nooga laayeen dagaal noogama lahayn waa xaqiiqa inta shacab ay laayeen inta ay laayeen maxaan ku raahdaa caruur iyo ciroolaba dagaal noogama lahayn xaqiiqa weyn maxaa yeelay hadda howlgalladii la sameeyey hal qof noogama dhiman waana laga eriyey aagagii ay fadhiyeenna waa laga qabsaday. madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo salaadii jimcaha kadib masjidka ku dhex yaala xarunta madaxtooyada villa Soomaaliya ka hadlayay ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda ammaanka dalka wuxuuna qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ugu baaqay in ay ciidanka amniga ku garabsiiyaan ammaanka. amnigu waa aasaas nolosha bini'aadanka iyo horumarkiisa ah. waxa weeye hadduu dalku uusan amni lahayn ma filaysid in horumar laga hadlo ma filaysid in nolol laga hadlo ma filaysid wax walba waa istaagayaan. waxa weeye saldhigga bini'aadanka waa nabadda weyn. cadowgaasi dowlad uma socdo marka inaan u wada midoowno kulligeen marka hadduu yahay shacab iyo hadduu yahay siyaasi iyo hadduu yahay mas-uul iyo hadduu yahay culamo iyo hadduu yahay ururada bulshada in dadkaasi aan la wada dagaalno oo aan loo daynin dagaalkooda. ciidamada qalabka sida waxa weeye waa inaan u mahad celinno waa inaan u hambalyeeno ciidamadeena qalabka sida dadaalada ay ku jiraan. shacabka Soomaaliyeedna waxaan ku boorinayaa inay garab siiyaan qof walba oo Soomaali ah inuu garab siiyo.